siyaasadii iyo xanuunkan HIV-ga isku soo dhex dareen siyaasadda isaga laga reebay isagu bulshada meel kasta joogto wax bili aadan oo dhanba saameyn buu ku leeyahay yaana lagu darin baan layaanoo la kaftamaya maamulinta siyaasiyiinta laanta iyo waxaan HIV-ga laga daayo. Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal. Khadiija Aadan Ibraahim oo maalmo ka hor aanu ku baahinay barteena YouTube-ka ee Red Production ayaan mar kale ku kulanay munaasabad ka dhacday Garowe. Khadiija waxay muddo 9 sano la nooleed xanuunkan HIV/AIDS-ka waxay noo sheegtay inay hadda ku jirto nolol wanaagsan isla markaana fariinteeda hore ay ka soo falceliyeen bulsho badan oo Soomaaliyeed oo joogta dalka iyo dibadda kuwaas oo siyaabo kala duwan ula soo hadlay qaarkoodna u soo hambaliyeeyay. Khadiija waxay sheegtay in ummadda Soomaaliyeed ay garab istaageen wixii ka dambeeyay muddo ku siman 10 cisho ka hor oo barteena YouTube-ka ee Red Production aanu ku baahinay wareysigeeda bulsho badan oo Soomaaliyeedna ay ka falceliyeen. waxay noo sheegtay inay hadda la nooshay seegeeda oo ah taliya Bashiir oo ah taliyaha saldhigga galbeed ee Garowe oo isna qaba xanuunkan iyo gabadheeda oo 15 sano jira dhigatana fasalka 3aad ee dugsiga sare ee Garowe. waxay sheegtay in gabadheedu aysan la nooleen xanuunka oo iyadu aysan qabin xanuunkan HIV-ga balse gabadheedu ay culeysyo waxbarasho kala soo kulantay gobolada waqooyi ee Soomaaliya halkaas oo markii dambe ay ka soo kaxaysay haddana ay wax ka barato magaalada Garowe. waraysigan ayaa ina dhex maray Khadiijo. walaal falcelin fiican baan ka helay walaalahay horta wixii afka Soomaaliga ku hadla ilaa adduunka xitaa Sweden bay gabadhiga soo wacday waliba nin cadaan ah oo soo islaamisay oo xanuunka ku qaatay iyadoo say tahay markuu arkay ku raacay gabadh walaashay ay soo wacday markaas ay aad baan ku hambalyeynaya waliba ninkaas markuu jeclaaday waxaan kala ugu raaciyay tiri inuu diinteeda qaato isagu waa negative isaga marka aan qabin xanuunka ma qaba negative iyo positive waayo dadkaas policy bay ka gaareen adu marka hore waraysiga hore aan baahinayna waxaad ku sheegtay inaad ka timid dhulka dowladdeegaanka Soomaalida ee Itoobiya dowladdeegaanka iniga u qaatay maaha gobolada waqooyi waan gobolka Awdal baan u dhashaano ma sha Allah waan dhageystay warkiina dambe magaalada Boorama waad gartay dadkii Puntland marka halkan joogay sidee u arkeen falcelintaadii maanta shir baan halkan ka qayb galnay labadeenaba oo looga hadlay qaabka warbaahinta u tabinayso iyo fariimihii qaabka loo wacyigelin lahaa marka dadku maxay dareemeen marka fariintaada baxday walaahi dhiirigelin weyn bay dareemeen waliba dhalinyarada aniga ay soo raadiyaan hadda ay sax marka dadkii gudaha joogay oo salaan dadkii xaafadaha iyo dadkii iyo dad aan ogeyn ma jiraan oo markan hadda fariinta ay gaartay way jiraan dad xataa aniga inaan xanuun qabin baa aday ama xanuunka la noolay aqoon baa jiro igu Khadiija goor ma ku dhacay bay qof dhisan bay ahayd maalin ma soo dhigin bay Khadiija xanuun bay la nooshay hada waxaan ka shaqeeyaa waxaan qolada bir educator kala yiraahdo wacyigelin VTC baa jooga dadka iyaga groupka nahay waan dawada siiyaa aan kaalmeeyana oo wacyigelin u sameeyaa oo aqal celiya tirada imika 150 baa noo diiwaan gashinta dawada qaadata laakiin la abtuna imika intii waxa ahayd 3,012 qof weeyaan 3,312 qof weeyaan inta soo gashay nolosha iiga waran xaafadaada oo kale imisa carruur ku joogta hadda ani waxay joogtay gabadh 12 sano jirta ma la xanuunka la nooshay iyadana marka may waa negative-yada meeqa sano jirta gabadheeda hadda waa dadka 15 15 sano jir weey ma sha Allah iskuul iyo waxbarasho ma dhigataa waa fontary way fiican tahay ma sha waxbarashada marka ka waran wax caqabada ma kala kulantaa ilmaha waqooyi way kala kulmi jirtay laakiin hadda halka waxba kala ma kulanto inkastoo halka wali iskuul geeyna dhawaan iyo soo wareegtay laakiin dadka ay bareftka shortahay la yiraahdo way dhigatahay cidna ma keer garayso marka lama adeerkina waa la yaqaanaa waa la yaqaanaa hadda markii bareftka Bashiir dadka aan fahansanayn waa taliyihii isaguna la noolaa xanuunka dad ma sheekadii hore fahmin oo waraysiga hore aad bixisay si kale u qaatay marka Bashiir baad isku shiteen noloshiina sidee ahayd markii hore iyo ma hadda sidee dareemaysaa walaahi anigu imika noloshaydu waa happy way markii hore hooyo single aan ahaa kalideed nool ilmo support gareynaysa xanuun la nool hooyada iyadana waxba qabin bay markasta stress ka qabtaa markii kalideed ilmo korinayso laakiin imika guri baan haystaa nolol baan ku jiraa Bashiir baan la noolahay nolosheedu waa happy ma sha Allah reerkooguna igu faraxsan yihiin ana waan ku faraxsanahay isna igu faraxsan aad bay soo dhaweey ana waa maamada magacayga xataa lama sheego maamadii baa la yiraahdaa wiilka Bashiir la dhashay wiilashiisa uu dhalay maamadiisa weyn ee negative-ka iyadna aad baan ugu mahad celinayaa walaashay weeyaan ma sha Allah baadna cawl jaamac ma sha Allah waxaan weynaa ku weydiiyo maxaad ku oran lahayd dadka kale Soomaaliyeed ama dadka takoorka noocan ka shaqeeyaan wanaagsaneyn dadka waxaan oran lahaa dadka walaalihiin way shay negative-ka markay haayeen waa ku hebel bay haayeen sidoo bayna maanta noo wax iska bedelay ma jirto
sokorta iyo xanuunkana waa la xakameyn karaa sida sonkorta u aaminteen xanuunkana u aaminaan leeyahay sonkortaaba ka halis badan oo marna kacaysa marna degaysa isagu mar kaliya hadda la saaxiibto waa saa ula saaxiibto oo u aamintay oo dawadiisa u qaadatay toos u qaadatay fayraska meel buu kaaga xidhmaya saameyntiisuna way yaraanaysaa mustaqbalka maxaad ku haweyntaa marka dadka wacyigeliyo oo daweeyaad ka mid tahay maxaad ku haminaysaa mustaqbalka waxaan ku haweynayaa dhalinyarta meel kasta oo layga baahdo inaan istaagon dadkayga la hadlo wax u sheego oo waxaan insha Allah waxaan doonaynaa inaan guul gaarno masha Allah hadda markaad noo imanaysay waxaad naga codsatay inaan sawir wada galno dadka kale sidee ku arkaan marka aad tusaalahaan ku codsatid inaad sawirtaan oo kale walaahi inta badan dadka horta Puntland jooga aad baan ugu mahad celinaya walaalahayga Soomaaliyeed way igu farxaan Puntland dadka jooga say inta badan laakiin midna waan u dirayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta siyaasadii iyo xanuunkan HIV-ga isku soo dhex dareen siyaasadda isaga laga reebo isagu bulshada meel kasta joogto wax bil aadan oo dhanba saameyn buu ku leeyahay yaana lagu darin baan layaanoo la kaftamaya maamulinta siyaasiyiinta laanta waxaan HIV-ga laga daayo iminka haddii la iga casuumo waa inaan si bilaa xuduuda ku tago Somaliland anigoo commissioner-iska u shaqeeya Puntland haddii xamar la iga casuumo waa inaan si furiya ku tago in la siyaasadeeyo ma rabo masha Allah ma santahay sawirkan wada gali doona insha Allah oo Maxamed Saalax uu naga qaadi doona insha Allah hay maxamed dhinaca kale agaasimaha guud ee hay'adda la dagaalanka HIV/AIDS-ka oo isaguna ka hadlay munaasabad ka dhacday Garowe ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda waqtigan ay ku sugan yihiin dadka la nool xanuunka HIV/AIDS-ka ee ku nool deegaanada Puntland waa kan isagoo sharaxaya xanuunkan HIV/AIDS-ka qaybna ay ka qaato sidoo kale sidii lagu yareyn lahaa faquuqa iyo dhaleecaynta lagu hayo dadkan la nool cudurka HIV-ga taas ayaa maanta la isugu yimid waxaana jecelnahay inuu socdo 2 maalmood haddii aan leedmo oo maanta ka bilaabanaysa bari baa la soo gabagabeynayaa waxaan rajaynaynaa fariin mug leh oo la taaban karo oo xambaarsan wacyigelin guud oo HIV ku saabsan inay ka soo baxdo haddii aan leedmo baan rajaynaynaa si guud agaasimaad u mahadsan haddii aad u sharaxdo bal xaaladda waqtigan ay ku sugan yihiin dadka la nool xanuunkan maxaad ku tilmaami lahayd dadka la nool cudurka HIV/AIDS-ka ee ku nool Puntland hadeer wacyigooda wuu kala duwan yahay dadku waa labo qaarna waa dad noloshooda la halgamaya oo dad faqiira u badan inta badan kuwaas oo ay ku adag tahay inay guriga kireystaan inay ciyaalkooda waxbarasho geeyaan inay nolosha asaaskeeda dabaraan kuwaas waa qayb ka mid ah weeye kuwaasi run ahaantii waxay u baahan yihiin gacan qabasho ay bulshada guud ahaan uga baahan yihiin tan labaadna waxa dad kala jira ayaguna bulshadaas aan ka duwanayn oo ganacsato ku jidho aqoon-yahano ku jiraan oo noloshooda dabara oo ciyaalkooda waxbarasho helaan marka kuwaasi waa rooyin ayagu laakiin kuwan kale gacan qabashay u baahan yihiin inta badanna dadkan nolosha ku adag tahay bulshadii waxay kala kulmaan faquuq dhinac walba haddii ahaan lahayd shaqadii haddii ahaan lahayd waxbarashadii haddii ahaan lahayd deegaankii intaba way la kulmaan laakiin bulsho ahaan waxaan rajaynayaa inay arrintaa kan waabtoobaan oo dadkan la soo dhoweyn doono hadeer dhawaan waxaan qabanay maalintii AIDS-ka adduunka deemadii maalintaas halkudhigi wuxuu ahaa bulshada ayaa udub dhexaad u ah jawaab celinta HIV-ga bulshadu qayb bay ka qaadan kartaa xakameynta HIV-ga qayb bay ka qaadan kartaa dadkooda inay soo dhoweeyaan oo dadku isku mid noqdaan waayo dastuurka Puntland ayaa qaba oo ay ku qoran tahay in muwaadiniinta reer Puntland ay u siman yihiin xuquuqdooda dhan qofka reer Puntlanderka ah xuquuqda wuxuu kala sameeyaa qofka kale qofka HIV-ga la nool wuxuu kala sameeyaa qofka kale oo caafimaadka qaba marka meelna laguma takoori karo marka waxaan rajaynayaa bulshada guud ahaan inay taa ka wada shaqeyn doonto haddii aan leedmo rajo weyn baana ka qabaa waayo waxaan ogahay hadeer wacyiga dadku siduu isu bedelay siday dadku u soo dhoweeyaan sida xarumaha caafimaadka loo tago oo la isaga baaro HIV-ga iyo sida fariimaha loo qaataba iyo sida hadeer dadku guud ahaan meel walba ay degan yihiin Puntland looga warqabo HIV-ga iyo siduu ku faafay iyo wuxuu yahay iyo wixii hore takoorka iyo dhibka keeni jiray laga gudbay
waa tahay daawadayaal mar kale kulanti wanaagsan intaasaan kusoo gabagabeynayaa waraysiga gaarka ahaa aan halkan idinkugu soo gudbinaynay waxaad ila socodsiinaya anigu Yuusuf Cabdishir waxaad kala socoteen bogga YouTube-ka Raad Production fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si aad mar walba ula socotid muuqaaladeena iyo wixii cusub ee halkan soo gelino maalmahana waxaan focus ka saaraynay dhacdooyinka la xiriira xanuunka HIV/AIDS maadaama ay ku beegantahay bisha December waa bisha loo asteeyay in laga hortago faquuqa iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka la nool xanuunkan idinkuna waxaan filayaa la socoteen waraysiyo iyo barnaamijyo hore oo halkan ka sameynay oo si volunteer aan uga diyaarinay in dadkan aan la faquuqin ama aan dhibaatooyin kale loo geysan kamarada waxa ii joogay Maxamed Saalax aniguna Yuusuf Cabdishiraan ahaa nabadgelyo